السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى صومالي ميل بلد دونك كجوكتان وانا دي سلامية كليبكم وحانو صدوبي أرين مع المهمبا مقالة كو قصنايت oo dad fara badan ka soo falceliyeen saxun ama si wanaagsan ba uga soo falceliyeen marka anu waxaan rabaa inaan saddex shay iraahdo mid waxa weeye dumarka Soomaaliyeed inaan la hadlaa rabaa maanta midina waa khadar iyo fahiima ayaa rabaa inaan u diro fariin midda saddexaadna waxay tahay ani ahaan dadka qabiilka ay u soo ataagay ee ka soo jeeda dhanka fahiima haddaan ku horeeyo taa ummadda Soomaaliyeed ama dumarka Soomaaliyeed horta dumarka Soomaaliyeed khadar ma ka hiiliyeen mise waa u hiiliyeen waxaan leeyahay anigu dumarka Soomaaliyeed khadar way ka hiiliyeen total mid iyo laba mooyee laba ama saddex ayaa u hiilisay inta kale weer casbay u xiratay khadar caydiisii iyo in la baabi'iyo dad baa xitaa yiri waxaanu isku dayaynaa ninkaas inaanu UK sii joogin wala iyada lama dhalan gabadha ma taqaano noloshooda waxba kama oga heerkaas inay qof Soomaaliyeed la gaarto aniga foolxume horta ii tahay midna maaha labana maaha waa dhowr dumarka Soomaaliyeed anigu waagi hore waa u dagaalami jiray waxaan aaminsanaa jiray in ay dhibaan ragga Soomaaliyeed in ay ragga Soomaaliyeed xun yihiin 90% 10 mooyee in ragga Soomaaliyeed ay dhibaato ku hayaan dumarka Soomaaliyeed balse markaan khadar la kulmay waxaan arkay waji kale ayaa ii soo baxay in rag fara badan aashuun ku adimayaan oo iyaga laftigooda dhibaatooyin fara badan iyo abayuus fara badan ay qabaan ayaa horta ii soo baxday aad baan uga xumahay fikirkaygii hore ee ahaa in dumarka kaliya la abayuuso ama la dhibaateeyo haddaba markaan anigu saaleeyahay malihi fahiima xun ama fahiima cid abayuustay macnahaygu waxa weeye qof walba oo horta la keeno ama nin ha ahaado ama naag ha ahaado kaas waa weeye ka dhibaataysan wiil qofkani ma gurigiisa ma joogo wadanka waa ku cusub yahay caqabado badan oo xagga luqadda ah haduu doono haduu xitaa luqadda yaqaano la qabsigii wadanka ayaa muddo qaadanaysa sharcigii wadanka inuu la qabsado muddo qaadanaysa fahankii magaalada iyo suu dadka u dhaxgali lahaa ayaa iyada laftigeeda ku qaadanaysa muddo qofkaas isagoo sidiisi kale waxa caqabado kale ku furan yihiin hadii qofkii uu nolosha la qaybsanayay ee keenay uu dhibaatooyin fara badan ku sii furo de qofkaasi nafsiyan ayuu dhaawacmaya una baaba'aya haddaba dumarka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ma idin ahayn kuwo xaq eegay ama fiiriyay ama baaray arinta khadar iyo fahiima qof halka jooga oo oran kara ma jiro arinta khadar iyo fahiima أنا لايف وأركي أنا لايف ولا خلي أنا لايف u dhaxgalay idinku ma jiro dhamaanteen inta caayaysa ee aflagaadaynaysa wiilka yar miskiinka ah waa dad aan haba yaraatee waxba ka ogeyn nolosha fahiima iyo khadar haddaba waxaan idin sheegayaa nin iyo naagtiis iyaga iska ka og ma oran kartid hebel baa qaldan ma oran kartid hebel baa saxan kuwa dhaar ku maray in wiilka yar nahaab yahay in wiilka yar kan yahay adu wiilka yar sidan yahay inuu wiilka adu gabadhi ma taqaanide sida u proof garaynaysa inuu wiilka yar dhibaatada isaga ka timi sidee ayaad u proof garaynaysa in dhibaatada ay ka timi khadar fahiima anu clip aan arkay waxay lahayd kala taga iyo sababta keentay in aan aniga khadar kala tagno dhankayga ka timi I don't think so inaad clipka daawateen oo aragteen haba yaraatee information aan siinaya warba idin sheegaya wax badan baad u weydiiseen oo tiraadeen qadar aaway marka information aan siinaya wax jira idin sheegaya waxaan idin ku codsanaya inaad marka idin sheego oo halkaas aad ku xirtaan aan idin ku codsanaya please ana single mother ah waqtigan xaadirka lagu jiro single mother ah ya waan isku dhacnay xaaladdu meel xun bay naga gaartay waana kala tagnay marka ina saas igu decisionkaas dhacay oo ilaahay qadartii ku dhacay inaanu xushmaysaan oo aad halkaas hadalka ku xirtaan asagana eedanaan eedaynin anigana aydanaan eedaynin oo aad labadeenaba sidii aad noo ahaydeen iyo wanaagii aad noo hayseen labadeenaba aad noo hayseen aniga qof weyn baa ahay qofkan qaladkiisa qiran runtana ma qirto runtana ma sheego
marka qaladka ugu weynaa oo aniga qalad keenay dib isku dhaca keenay anigaa keenay ma fahmaysin ani qof weyna ahay runta inaan sheegana kama baqaayo saasay tahay waa gabadh fariida way qaratay dembigeedii wayna qaadatay ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyaan leeyahay laakiin dadkiinan aan haba yaraatee midna aqoonta u lahayn walaalayaal ee iska caytamaya ee iska aflagaadaynaya qof aanay aqoonin ummadii Soomaaliyeed waxay noqotay dadkii hore waxbay eegi jireen waxbay arki jireen waxbay baadhi jireen warka loo keeno waa falaaqayn jireen waxbay si fiican u sii gudageli jireen si ay information fara badan uga helaan kuwani eray yar baa ku soo duulaya bug erayga baa lala boodaya hayaa hebel waa sidan oo hebel waa kan oo hebel waa keero stupidka keera isba maba taqaanida ummadiiba waxay noqotay ugu wada shubo maskaxdooda hadal lagu shubanaya maskaxdiini oo dhan dadka Soomaaliyeed maskaxdoodiiba waxaad moodaa inaan iyagu isticmaalin maskax human kale maskaxna youtuber maskax qof kale oo been soo abuuray bad arkaysa dadkii wada ka dhaadhacday qofkaasi waa sidaa qofkaasi waa qof xun qofkaasi waa keer qofkaasi waa kan qofkani waa keer dumarka Soomaaliyeed waxaad moodaa ama ummadda Soomaaliyeed ba aan iraahdee waagii hore dad fariida ah oo garka gooyn jiray oo dadka dhexgali jiray ya oo dadka u garnaqi jiray ayaa la heli jiray hadda waxa moodaa kulli waa dhirbaaxan yihiin gadaala laga wada taabtay no dhash waxaad moodaa maskaxdeena yara wareegtay caqliba ma jiro fakir ma jiro hadda caayo wiilkaas wada la caayaysan haddaan amaanana wada la amaanaysan soo ma ogdin qof baa idin la caayaya waad la soo fadhiisanaysaan oo caayaysan qof baa amaanaya waa la amaanaysan taasi maskaxda qofkan aad ku shaqaynaysaan maskaxdiina walaalayaal ku shaqaynaysaan horta waxaan oran lahaa dumarka Soomaaliyeed waxaan maqli jiray riyo iyo dumarba looma dhutiyo mindha haddii loo jabo dumarka Soomaaliyeed ka degaba ma yaqaanaan qofka ka dega saasay ugu galgasheen qof walba waxa la keensado laakiin yaa isku mashquulin waa lagu keensaday waa nimcaha wiilka dhalinyarada ah oo runta sheegay oo daacadda hal laga wareegto wuxuu ka helayba 5 sano la joogay buu yiri waa u heesay oo waa la joogay oo time baan la qaatay oo waa u qoslay oo waa la farxay intaas ba adduunka oo dhan maas laakiin dulmiga iska daaya nagama maarantaani waxa u qabtaan dumarka kaliya aan weelino victim kan weelina dumarkaan u hiliya caruurtana waa u hiliya khadar markaan fiiriyo sheekadiisa khadar waa victim marka victimka malcaysanaya victimku waa nin victimku waa dumar victimku qofku doon noqon kara laakiin daaye wiilasha daaye nayaara naagaha maana wiiftaynka naadafa wiilasha yarka nayaara marka walaasha gurigeeda markay joogto dabeecad bay leedahay adiga walaalnimo markay kula joogtana dabeecad kale leedahay walaalkaana waa sidoo kale Soomayd garan marka hays oran walaasha kuma qaldami karto odaygeeda walaasha waa qof wanaagsan hadday adigu wanaagsan tahay inaan odaygeeda wanaagsanayn baa dhici karta inay odaygeeda u xunta ha dhici karta walaalka inuu sidoo kale yahay dhici karta ma difaaci kartid qof aad qabiil ku difaacaysid iska daay kan kula dhashay hooyada ay aabaha dhaleen baadan difaaci karin Soomayd loogan ma difaaci kartaa sababtoo dabeecadiisa dabeecad walaalnimo oo jacayl ayuu adigu kula dhaqmaya walaasha weeye walaalnimo kula dhaqmaysa ama isdila ama heshiiya dabeecad walaalnimo idinka dhaxaysa laakiin markay gurigeeda joogtay odaygeeda la joogto dabeecad kale leedahay dabeecad ay odaygeeda kula dhaqantay leedahay ama ha ku xumaatay ama ha u wanaagsanaatay dabeecad kale leedahay walaalayaal marka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan iraahdo qabyaalad dalkii baynu qabyaaladeyni dadkii baynu qabyaaladeyni familiadii baynu qabyaaladeyni meel walba inaynu qabyaalad walaalayaal ku qooshno ma qurux badna aniga cidii rabta inay ii soo ataagtana dee ummad meeshaan ku noolahay walaal waa taqaanaan meeshaan deganahayna waad garanaysaan aniga isoo doonta waxba qaarkiin ha soo wareegin oo dad kale ha soo dirina qaarna toos waa ii soo gasheen waan ogsoonahay totally koolkaas ay igu soo gasheenna waa ku qaldan tihiin haddeer baan idin sheegayaa hal habeen baad aniga iga sokaysaan fahiima waxba igama sokaysaan waa gabadh in adeertay amba habeenkaas aad iga sokaysaan uunba dagaal igula soo qaadaysaan marka waxaan leeyahay waan ka xumahay ilaahay qalbadiina qabiilka ka masaxo qabiilka foosha xun ee idinku dhiiqsaday allah idinka tirtiraan idin leeyahay laakiin waxaan kuu sheegayaa gabadh aad qabiil ku difaacaysid
iyo gabadh aad reer hebel ku difaacaysid ha ku qasaarin. iyaga iyo labada qof ee isqaba iyagaa heshiinaya, iyagaa iska kaa jecel, iyagaa berri markay heshiiyaan adiga maxaa ku dhaqa? adiga maxaa ku dhaqa? bal ii sheeg, maxaad ku hadli? dumaashigaa maxaad kula hadlaysaa markaad maanta caydid? dumaashigaa maxaad u sheegaysaa? war walaalayaalow ilaahay ka cabsada oo ummadda islaamka cafiya oo ummadda islaamka iska daaya oo familada aad iska caayaysaan iyo dadkaad iska caayaysaan. halkaasaa mid soo fadhiisanaya maanta oo dhan caybo dhaarra kuma yaqaano, ku garan maayo, meelu kaala qaaday garan maayo, bababababababa wanaagba ma jiro. ummadii Soomaaliyeed carabkooduba xubaan iyo cayd, wax kaleba lama barin. dad wada khasunaas ah oon dhaqan lahayn oo waxba kala garanayn oo midha iyagoo ordaya la dhalay oo bisinka loo qaban baa saa la isaga soo daayay social media. wuxuu doonay assalaamu calaykum hadduu ku dhaho ku caaya, hadda waa salaanta, wax kale iska daayay. salaan haddaa salaantadu ku caayaya balkaasood wax kale u geysatid ka war, caydii baaba laga baayac mushtaraynayaa. marka waxaan idin leeyahay walaalayaalow, reerkan iskaga dhex baxa. reerkan boos idinkama banaana. haddaad qabiil ku socotaana boos idinkama banaana. haddaad edab darro iyo dumar ahaan u socotaana boos idinka banaan haba yaraatay ma jirto. war ilaahay ka cabsada. dumarka Soomaaliyeed xaqa barta. markii xitaa nimanku idiin hiiliyeen xitaa ma garan weydeen wiilka yar iskaga dega oo wiilka yar ka xishooda oo balde xitaa qaarkiin difaaca. subxaan allah, dadkanina ma yar qabaan iyo anu kala garan maayaba. wallaahi waa dhirbaaxantihiin ummadda Soomaaliyeed. anu waxaanba fiyoobaanba ma jirto. kulli dhash qadaadka laga wada taabtay, kulli waa dhirbaaxan yihiin. boolal baa ka wada baqan, ya wada isgruub luus baad noqoteen. isgruubyaa idin dabacsan. walaalayaal dib isuna noqo. qofka bini aadanka saaha ugu tiiqtiiqsanine bal wax baar, wax soo warayso, dadka yaqaan soo warayso. isku day isaga inaad raadisid, isku day iyada inaad raadisid, dhexdooda gal. bal xitaa inaad isku maslaxayn kartid. haddaadan isku maslaxayn karina iyagoo israba oo walaala ah inay kala tagaan bal isku day inaad samaysaan. laakiin inaad dab iyo baasiin iyo cay idinka dembi uun maxaad urursateen? wax allaale wuxuu lahaa qadar rabta idinka kala degay. xabad dembi ah haba yaraatee leeyahay ma jirto. waa idinka xaabsaday kulli bac madow baa ku dhuuqsateen. yaa bacdaa dhuuqsa dembiyadii uu galay. hadduu dembiye galayba wixii ba idinka carruursadeen. Soomaali maxamed ee weliba dumarow idinkaa bacamed madow ka buuxsaday, mininkiinaana geysateen. aakhirana waa laydinkula xisaabtin doonaa, soo ma ogidin. marka waxaa idin leeyahay walaalayaal, bal xaqa barta. dumarkow xaqa barta oo ragga aashuunka ku adimaya ee dhibaataysan. walaalayaalow bal u naxa oo idinkuba garta in rag dhibaataysan ay dunida ku nool yihiin. taas waa inaad fahantaan horta. dumarow ma ilowdeen wiilasha maanta magaalada maraya ee qashinka guranaya ee gabdhihii ay keeneen ka wada carareen. maxaad kuwaa uga hadli weydeen? khadar horteeda Fahiime isagoo hor fadhiya ayuu yiri waa la xiray, boolis baa laga dhigay. qof ka hadlay ma jiro. midkiin ma ka hadlay? ma tiraahdeen see lagu xiray? see adad uu meel soo dhigay baad bug ka wada tiraahdeen. boog war maanta waa nin sharaf leh oo edeb leh oo xishoonaya. qaarkood hadday gacanta ku dhigi lahaayeen wallaahi meelo xunxun bay soo dhigi lahaayeen. lifekeeda iyadoo life oo jirkeeda dhanba intay soo sawiraan bay social mediaha qaarkood kasoo tuuri lahaayeen. anugu qadarna ma aqaan, Fahimena ma aqaan, laakiin waxaan ka xanaaqay dad yowga xagxaganaya wiilka yarka ah oo ku xagxaganaya baraha bulshada oo ku cunaya baraha bulshada. qofka la keeno waxbuu dulmaa, kan wax keenayna labadaba way ka imaan kartaa.